رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. qasriga fircoon. waxaad tahay saxaabiyad, dabcan waxaad u baahan tahay inaad wax badan ka ogaato taariikhaha ummadihii inaga horreeyey. arrintaasna waxaa ka helaysaa deganaan iyo qanacsanaan, sidoo kale waxaa kuu kordhayo iimaanka iyo kalsoonida aad ku qabto diintaada. laga soo bilaabo nebi aadam calayhi salaam ilaa laga soo gaaro nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam, waxaa isbeddelaya oo keliya shareecada iyo habka cibaadada, balse diintu waxay ahayd mid keliya oo aan isbeddelaynin, ciwaankeeduna uu yahay hadalka rabbiga ee ah diinta xaqa ah ee alle agtiisa laga yaqaano waa islaamka. waa kan nebigaaga iyo midkaa jeclayd oo codkiisa macaan kugu soo dulmarayo qisooyinkaas qiimaha badan, adigana u diyaarsan tahay maqalkooda si aad dib ugu laabato dhacdooyin aadan waqtigooda noolayn. nebigaaga iyo xabiibkaaga iyo midkaad dooratay indhahaaga iftiinkoodana ah ayaa wuxuu ku yidhi markaas. nebi ibraahim calayhi salaam noloshiisa wuxuu sheegay 3 been oo keliya, oo 2 ka mid ah uu alle dartii u sheegay, mid kalena wuxuu u sheegay xaaskiisa saara awgeed. xilli isaga iyo saara ay la kulmeen mid ka mid ah boqorrada ku kibray adduunkan. nebi ibraahim calayhi salaam ayaa markii ay qoomkiisa ka soo saareen ciraaq, ayaa isaga iyo xaaskiisa oo saara ah waxay aadeen masar. saara waxay ahayd marwada ugu qurxoon taariikhda bani'aadamkoo dhan. heer la yidhaahdo quruxda nebi yuusuf waxay ahayd dhididka saara, sidoo kalena waxay ahayd nebi yuusuf ayeeyadiis. maadaama boqorradii soo maray masar la odhan jiray fircoon, ayaa fircoonkii xilligaas joogay wuxuu ahaa mid aad ugu waalan xagga dumarka. naag walba qurxoonna wuu damci jiray, ciidankiisana wuxuu amray haddii arkeen naag qurxoon inay u soo sheegaan isaga. ciidankiisa ayaa maalin waxay u soo sheegeen quruxda saara, markaasna wuxuu u wacay nebi ibraahim calayhi salaam isagoo weydiinayay waxay isku yihiin labadooda. nebi ibraahim calayhi salaam isaguna wuxuu ugu jawaabay waa walaashay, sababtoo ah wuxuu ogaa haddii uu yidhaahdo waa xaaskayga inuu dili doono, iyadana uu qaadan doono. nebi ibraahim calayhi salaam saare ayuu ku yidhi, adduunka anigiyo adiga bes ayaa muslimiinka ah. ninkaasna wuxuu i weydiiyey waxa naga dhexeeyo, waxaana ku idhi waa walaashay ee ha igu beenin adiga. ibraahim iyo saara markii ay yimaadeen qasrigii fircoon, ayaa fircoon wuxuu amray in saara gudaha loo geeyo. maadaama uu ahaa boqor damac badan, wuxuu damcay inuu gacanta la aado, balse gacantii uu soo taagay ayaa waxay noqotay alwaax, sidoo kalena way qallashay. wuxuu ka dalbaday inay alle u bariso oo uusan agteeda u soo dhowaanayn mar dambe, sababtoo ah wuxuu ogaaday iyada iyo ibraahim inay yihiin muwaxidiin oo alle keliya caabuda. alle ayaa u barisay markaas, gacantiisana way u fiicnaatay, balse mar kale ayuu damcay. wuxuu isku dayay inuu u dhowaado, balse waxaa ku dhacay markaan wixii hore ugu dhacay wax ka daran. shaqaalihiisa ayuu u wacay markaas, wuxuuna ku yidhi tani waa shayddaan ee bani'aadam ma ahan. wuxuu amray inay fasaxaan, sidoo kalena ay siiyaan gabar addoon ah oo la odhan jiray haajara. saara waxay u soo laabatay nebi ibraahim calayhi salaam oo ducaynayo, waxayna u sheegtay waxa dhacay. waxaa la sheegaa in allah subxaana wa tacaala isagoo qalbiga u dejinayo qaliilkiisa, dareensiinayana sida loo ilaaliyo sharafkiisa, ayaa wuxuu tusay waxa ka dhex dhacayo fircoon iyo saara. saxaabiyadda, dabcan beenta ku jirto qisadan ma ahan beenta aad taqaano adiga ee ah xaqiiqada loo beddelayo beenta, ee waa sheegidda wax aan xaqiiqo ahayn oo ay danta khasabtay. islaamku waa diin waaqici ah, sidaas awgeedna beenta ayuu banneeyaa xilliyada qaar. saxaabiyadda, soo hadda ma aadan ogaan in ibraahim calayhi salaam wuxuu sameeyey ay ahaayeen xeelad iyo qorsho oo aysan ahayn been. sida hadalkiisa u yidhi waa xanuunsanahay isagoo caafimaad qabo. hadalkaas wuxuu u yidhi si uusan qoomkiisa ugu raacin alle cidaan ahayn in la soo caabudo. hadalkiisa kale ee ah waxaa sameeyey midka ugu weyn, bal facalahu kabiiruhum. arrintaas wuxuu u sameeyey si uu xujada ugu ogo ayaga, sidoo kalena u caddeeyo
sanamyadii caabudayaan alle sokadii inaysan waxba dhibin waxna anficin. saxaabiyadda qofkii alle ka rabo ilaalin iyo dhowrid allah wuu ilaaliyaa. allah subxaanahu wa tacaala wuu ka sarreeyaa inuu ku fadeexeeyo adigoo ka dalbanayo ilaalin iyo dhowrid, ama inuu kuu keeno shar adoo ka dalbanayo wanaag. wanaaji niyadaada oo maamulka uga leexo rabbiga. fircoon gacantiisa ayuu qalajiyey sababtoo ah wuxuu damcay inuu ku faro xumeeyo marwo dhowrsoon. si kastoo hantiile u tahay iyo si kastaa u qurxoon tahay iyo wax walba oo aad gaarto oo guul ah, mar walba noqo garabka ninkaaga. ha iskala weynaan, ragnimadiisana ha dhayalsan. taasi ma ahan akhlaaqda iyo dhaqanka gabdhaha wanaagsan. si kastaa u qurxoon tahay, quruxdaadu ma gaari karto quruxda Saara oo kale. iyaduna mar walba waxay ahayd garabka Nebi Ibraahim calayhi salaam. waxay ahayd xaas la jecel yahay iyo saaxiibta ugu wanaagsan. si walba hantiile u tahay, hantideeda ma gaari karto Ummu Khadiija oo kale, oo hantideeda oo dhan gacanta u gelisay ninkeeda. xilli dadka waxooda ay u diideen ayaa waxeeda siisay, xilli dadka ay beeniyeenna way rumaysay. waxaaga adiga ayaa leh, taasna shaki ma lahan, cidna doodka ma qabto. laakiin guri ay ka shaqeeyaan laba jeeb, kan adiga ayaa leh, kan aniga ayaa leh. dabcan noloshu waxay noqonaysaa ciriiri.